madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu martiqaad ka helay Guinea baa laga soo casumaad official oo helay halkaas oo casumaadii u tagay waa la qaabilay waxaana lagu qaabilay maqaam sare oo sidii madaxweynayaasha lagu qaabilay awalba madaxweynuhu waa bixi jiray dawlado badan buu tagi jiray oo maqaamka lagu qaabili jiray hadda waxa soo kordhay waxa weeye safarka dawladda federaalka Soomaaliya way ka qaylisay waxay gaarsiistay inay yiraahdaan waxaanu ka goosanay cilaaqaadka waanu ka goosanay Guinea wax ku kalifayna ilaa hadda ma aanan garan laakiin waxa uu ka soo baxday waxa weeye cadaawadii ku jirtay ayuun bay barnaanka u soo saareen inaguna waxaynu inta lahayn walaalaynu nahay wax kama sheegno wanaagooda iyo waa ku faraxnaa laakiin iyaga cadaawadeeda inuu tuseen waxa weeye inaynaan dhaqaaqin oo meel aadin jamhuuriyadda Soomaaliland cid ay uga kabanaysaa meesha aadayso ma jirto waxa weeye meel walba waa tegaysa oo qof kasta oo dani kaga xidhiidho cid ay uga amal qaadanaysaa ma jirto haddii cilaaqaad ay ka goosanayaan iyo haddayan ka goosan waxa weeye dadaalkii waynu waa sii wadanaa dawlad kasta iyo cid kasta oo dani naga xigtana waa u tegaynaa laakiin waxa soo baxday waxa weeye waxay qarsan kari waayeen afkii macaanaa walaalayna baa soo shacbaxay inayna walaalahayn aynu cadow sugnahay wixii hadda ka dambeeyana walaalnimo ma sheegan karo waad maqlaysaa 26 Juun iyo Juulaay iyo walaalaheen afka macaan baa leeyahay kula hadlay marka de waxa la afxumo dagaal wax kama tagto tiyuba ataatay marka waxaan idinku yeernay waxa weeye lagu kalifay golaha baarlamaanka saaka uu fariistay wuxuu soo saaray taageeradiina waa idin akhriyana waxaanu u jeednaana waxa weeye anagu inay xumaadaan inay wanaagsanaan bay rabnaa kii aynu la rabnay inayna ku masayraan sidii dubar la wada qabo inay yiraahdaan waa madaxweynaha baa la soo dhaweeyay cilaaqaadka waan ka goosan marka waxaan soo jeedinaa waxa weeye dadka gudaheeni waxay naga faa'iiday laba faa'iido inoo tartay mid waxay inoo tartay waxa weeye dadkii lahaa farmaajo iigeen ku socdayo farmaajo waa ka marka gudaheena waxba inoo tartay dawladaha ay leeyihiin waxbaanu ka goosanayna deebaba cilaaqaadba male marka inta yar hadii xamil waayeen wax kale inoo xamilayaan ma jiraan marka waxaanu aqriyanaa taageeradii kolahana duuniyaha idin aqriyaya waxaanu idinku qeyd waxaan ujeedadu waxa weeye in aanu idinla qaybsano waxa golahu ka qabo safarka madaxweynaha dhankiisa gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa isaguna halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu isagu akhriyay bayaankii ay soo saareen golaha wakiilada Soomaaliland ay ku taageerayeen safarkaasi uu madaxweynaha Soomaaliland ku joogo wadanka Guinea Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa isaguna arintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri afrilaadkii saacadood ee dambeeyay warbaahinta caalamka iyo maxalliga ah haysatay safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku aaday dalka Guinea Conakry oo runtii soo saaray wax badan oo qarsoonaa sida gudoomiyuhu sheegay nimanka dawladda Soomaaliya ka taliya waxay wali fahmi laayeen eray bixinta kala go iyo kala gurasho labadaas kala saar laayeen shaygu hadduu asalkiisu mid ahaa oo uu kala go'ay leeyahay laakiin laba shay oo marka horeba isu tagay hadday kala baxaan kala go' lama yiraahdo waa kala gurasho Soomaaliya iyo Somaliland laba dal oo midoobay 60kii bay ahaayeen marka may kala go'ine midowgii dhacay baa laga noqdo waa la kala gurtay erebixintaasi fahmi laayeen ragga dhan ee dawladda u taliya waxaan leenahay haddii kala go' aad ka hortageysaan kala go' waa ka gaalkacyo yaala ee magaaladii gaalkacyo laba madaxweyne u yeelay ee laba dastuur u yeelay ee laba dawladood iyo laba calan u sameeyay taantaas ku dhaafayna golaha wakiiladu
iyadoo aad ogeydeen cadaawaddii hore ee Soomaaliya kula kacday markii heshiiska DPWL ay la gashay Jamhuuriyadda Somaliland oo dhaqaalihii ummadan iyo shacbigan iyo dalkan u soo kordhayay ay mooshin ka soo saareen ay kaga hor imanayaan maantana waa tallaabadii labaad ee siyaasadeed ee ay ku muujiyeen cadaawadda ay u qabaan qarankan iyo ummadan iyo shacabka marka golaha wakiiladu waxa uu soo saaray bayaankan uu gol ahaan ku guddoonsaday inuu saaka saxaafadda la wadaago baaqa taageerada safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland golaha wakiiladu isagoo ka duulaya awoodda dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland siiyay ee ah hagista siyaasadda guud ee dalka isagoo yaqiinsan isbedelada iyo marxaladaha siyaasadeed ee caalamka isagoo og xuquuqda aasaasiga ah ee ay ka tashiga ummadaha adduunka self determination isagoo aaminsan xaqa ummadda Somaliland u leedahay inay aayahooda ka tashato isla markaana hesho aqoonsi caalami ah waxa uu soo saaray baaqan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu si buuxda u taageersan yahay safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wadana Muuse Biixi Cabdi ku tagay dalka Guinea isla mar ahaantaana ku hambalyeynaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland tallaabada taariikhiga ah ee uu qaaday golaha wakiiladu waxa uu u mahadnaqayaa dawladda Guinea Conakry ee sida maqaamka sare ku qaabishay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland golaha wakiiladu waxa uu si xooggan u cambaareynaya hadallada cadaawaddu ka muuqato ee dawladda xamar ka soo yeedhiyay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland waxa kale oo uu ka fiirsanayaa mustaqbalka wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya sida ay noqon doonaan gabagabadii waxa beesha caalamka golaha wakiilada Somaliland ka codsanaya in aanay indhaha ka qarsan xaqiiqada ka jirta Jamhuuriyadda Somaliland isla mar ahaantaana sida uu la socoto cadaawadda qaawan ee ula kaca iyo bareerka kaga soo yeedhaysa dawladda Soomaaliya ee ku aadan Jamhuuriyadda iyo jiritaanka madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland waad mahadsantiin